odayaal waxgarad iyo qaybaha ciidamada dowladda ee ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka galmudug oo muddo u salbacaadinaya xalka gaarista colaad rubac qarni ka badan ka dhex oogneyd beelo wada degan deegaano u dhexeeya balanbal iyo guriceel taa oo galaafatay nolosha dad badan ayaa laga gaaray xal waara. colaadda oo ku salaysneyd daaqa iyo biyaha ayaa muddo laysku howlay sidii loo damin lahaa, ha yeeshee dadaal kasta oo duqaydu ku bixinayeen daminta dabkii oognaa waxaa doc faruurayay maleeshiyaad hubaysan oo dilal ka geysanaya deegaanada daaq wadaagtu ay ka yihiin xoolo dhaqatada. xasan khaliif mire waxa uu garaadsaday iyada oo colaadu ka jirta deegaanka. waxa aan kula kulmay deegaanka Oodaale oo u dhexeeya degmada Balanbal iyo Guriceel. deegaanka hadda aan joogno waxa waaye deegaanka la yiraahdo baalkan la yiraahdo Oodaale. haye aad iyo aad colaado badan aga jireen inkastoo haddeertaan laga reestay wax dhibaato iyo wax magiciisa midna aysan jirin oo ilaahay dadka ka magiciisa ka qaaday oo dhibaato ka qaaday. aad iyo aad aan u soo dhaweeynaa annagu sida dawladda wanaagsan dadka iyo la dhaqantay iyo dadka. deegaanadii marka colaaduhu ku kala xirmeen dadka ma isu gudbaan? waa isu gudbaan oo isla joogaan oo isdhex galaan oo meeshii haddeertaan magaaladii baa la degaba. shaaxa wada cuno dad wada joog wada dhashaanayo sidii hore iyo si ka fiican baa soo ranaa. inkastoo degmada Balanbal ee gobolka Galgaduud ay ku taalla xadka ay wadaagaan dalalka Soomaaliya iyo Itoobiya, haddana waxa ay marti soortay colaado muuqaalo kala gedisan lahaa kuwa oo saameyn ku yeeshay adeegyadii horumarineed ee deegaanka. ha yeeshee dabaysha nabadeed ee deegaanka iyo dadkuba ay heleen ayaa muujinaysa isbeddel horumarineed. xasan xirsi carabow waxa uu ka mid yahay waxgaradka deegaanka Xirsulugay oo 7 kiiloomitir u jira degmada Balanbal. waxa uu ka waramayaa dadaalka lagu bixiyey nabadda deegaanka. waxaa heshiis u ah iyada oon qof qori qaadi kara uusan jirin oon dowladda ahayn. waxaa heshiis u ah iyadoon qof dili karaa jirin. waxaa heshiis u ah iyadoo xoolihii la kala dhici jira qof dhici karaa uusan jirin. waxaa run ah oon beenahayn in qof walba gurigiisa nabadda waxaa laga qaadayaa toog iyo waxaa laga qaadayaa ganaax iyo waxaa laga qaadayaa xarig. saddexdaas qodob ciddii isku dayda inay maaragtay nabadda carqalad geliso aan ku habboon sida qurxoon oo ugu degdega badanna loo qabto. si wanaagsanan u tagaa hadda Balanbal waan tegey. tuulooyinka Balanbal agagaarkiisa mid aanan tegin kuma jirto. xoolaha soofa iyo reer dhaqameedka meel aanan marin waa meel dhif oo tirsanta. inta kale anoo nabad qaba ayaan goobaa keenaa wix allaaliyo wixii ka dhacan aan soo ogaada. xaliimo warsame xasan deer waa guddoomiyaha haweenka degmada Balanbal. waxa ay VOA uga warantay kaalinta ay haweenku ka qaateen nabadeynta beelaha iyo dhibaatooyin dumarka ka gaaray. door waxay ku leeyihiin cajaa'ib hooweyn oo haddii ayagu ay ku dadaalaan aan ciduna dagaal ridi karin. sababtoo ah ragga waa miday dhashay mid la dhashay iyo miday u dhaxday. ninku hadduu caaw dagaal aado ayna ayadu raalli ka ahayn ay tafta ku dhigto tiraada haddaad dagaal aado oo dariska aado oo dhib samayso aniga ma joogayo dalka waa ka baxaya. dagaal raggu ma ridi karo. alxamdulilaah inaa gabdha nooga dhinteen xataa xabad annaga oo nabadeyn u soconna annagoo baabuur wadanna annagoo lugaynayna annagoo in badan dib jirnay oo xataa aan dad arag oo raadkanaga markii la arka laleeyahay waa wiidi hala laayo. dhowr gabdhood baa nooga dhimatay, dhowr waa nooga dhaawacantay. ilaahay mahadi waxaan ku guulaysanay in aan dadkii halkaas ay ka dhaxaysay oo walaalaha ahaa inaan nabad dhex dhigno. shirwad maxamed cali waxa uu ku sugan yahay Balanbal. VOA ayuu u sheegay xaalka deegaanka. in badan baa nabadda iyo gogol dhigeeda uu naga burburay. in badan buu naga burburay. waxaa ilaahay noo fududeeyey inaan helno dowlad. hadda deegaanku wuxuu ku sugan yahay nabad buu ku sugan yahay ballaaran. jiifkii laga tego guryaha waa la seexdaa. dadkii isu soconahayey oo isdhex marahayey ilaahay waa isu fasaxay. waxaan la gaaray heer qorigii la qabta dowladdu leedahay. qofkii lagu qabta 6 bilood yahay. qofkii hal xada $500 yahay. 3 bilood oo xariga yahay. waxaan u goynay xeerar badan iyo nidaamyo badan. waxaa lagu gaaray guul weyn. gaashaanle maxamed cabdirasaaq tooreeye waa taliyaha saldhigga degmada Balanbal. waxa uu sheegayaa in xaalka amniga deegaanku uu yahay mid wanaagsan islamarkaana bulshada iyo booliskuba ay si wada jira uga wada shaqeeyeen. ilaahay mahadiis weeye. nabadgelyadu hadda waxay maraysaa 100%. run ahaantii inta aniga aan soo gaaray 30 sano oo wadanku burbursanaa maantay bay deegaanadan ugu nabad badan yihiin. waxaad ka dareemaysaa dad
isdacweynaya oo saldhiggii imaanaya oo riboodkoodii keenaya oo aada u fara badan. mideeda kale waxaa kaloo intaas weheliya degmada Balambal oo ku taala xuduudka Itoobiya iyo Soomaaliya. waxaa ku hareereysan oo hoos yimaada degmada Balambal ugu yaraan adigu 12 tuulo ilaa 13 tuulo oo magaalooyin waaweyn ah. 13kaas tuulo dadka jooga oo dhan waxaanu ilaahay baa mahad iska leh aan isku taxalluujinay inaan tagno deegaan kasta aan odayaal iyo kala soo shirno dad cuqaal ah si ay noogu soo gudbiyaan hadba wixii ka jira meesha oo nabadgelyo darro ah. meelaha qaarkood miyiga ah marka ay wax ka dhacaan oo dadka xoolo dhaqatada ay wax soo dhex kala galaan ciidamada booliiska degmada sidee uga howlgalaan? waxay aga howlgalaan dadku waxaan soo siinay lambarada saldhigga ciidanka booliiska. haddii neef la dhaco, haddii laba qof diridho, haddii kufsi dhaco, waxaa noo soo gudbiya dadka odayaasha oo deegaanka iyo cuqaasha. xilliga rabsa aad telefonkana waa online, waa nala soo wacaa. waxaan idhahdaa meeshaas dhib baa ka jira, ama laba qof baa neef isku haysata, ama laba qof baa baraag isku haysata. annaguna si degdeg ahaan aga jawaabnaa, waan aadnaa, waan ku baxnaa. dadaalka nabadeed ee deegaanka kadib waxaa isbedelay xaalka degmada, waxaana ka muuqda isbedel horumarineed sida ay sheegayaan qaar ka mid a qeybihii bulshada ee VOA ay kula kulantay Balambal. taas haddaan kula wadaago aniga hadda kula hadlaaya dhismaha aan geliyey Balamballe dukaamo waaweyn baan ku lahaa. dhismaha aan geliyey ugu yaraan waxa waaye ilaa 30 ilaa 20 guri waa ka dhisantay oo anigu aan geliyey dhulka. sababta aan uga jeedana waxa weeye dhibkii hore oo ama gumaysigii u geystay ama walaalihii ehliga dagaalkoodii u geystay inaan ka soo kabo. qof kasta wuxuu rabaa inay kororto magaalada qurux badnaato. aad iyo aad bay uga soo kabanaysaa. waxaa yimid wax alla wixii ka raaraa oo ka maqnaayoo nabad darro awgeed amni darro uga maqnaa oo dhan baa yimid. aqoon-yahanadii baa yimid, waxaa yimid dadkii ganacsigii baa yimid, hay-adihii oo dhan baa ka shaqaynayo, mid walbaba xaafiis bay ka furanaysaa. taliya Tooreeye ayaa tilmaamaya inay jiraan caqabado booliiska ka haysta howlgudashadooda. waxaan markaa codsanaynaa in gaadiid annaga booliiska ah aanu helno. waxaanu dowladda ka codsanaynaa gaadiid aanu kaga howlgalno si nabadgelyadu ay taam u noqoto, aysan marna hakad u gelin. in ciidanku ciidan firfircoon oo aada u shaqaynaya oo duruufo badan kusoo shaqeeyey, haddana weli aan ka niyad jabin, haddana ku shaqeeya. marka haddii ay gaadiid heli lahaayeen ciidankaas, waxaan aaminsanahay in aan military iyo nabad sugid dambe aysan deegaanada Balambal hoos yimaadaa iska shaqayn lahayn oo boolisku ay ku filnaan lahaayeen. madan ay xal leedahay deegaanka Soomaalida ismaamulka Itoobiya, ma jiraan xiriir amni oo idin kala dhaxeeya? way jirtaa, waanu wada shaqaynaa. ciidankanagu xuduudka waa joogaa, ciidankooduna xuduudka way joogaan, matuulooyin ku dhowdhow way joogaan. ninkii sheegtuug ah oo xaggan wax ka xada, xagga markuu galo ciidanku waa wacayaan, waa la qabanayaa. hadda gaadiid oo laga soo dhacay sheeg deegaanada meelo ka mid oo kale, kuwa dad qasho wax ka xaday oo kale, inta ay sheeghiminimo ka gudbeen deegaanka ugu sokeeyo xuduudka hadda nala laho qorraxay bay waxay galeen doollo oo kale. riboodka markaan siinay soo qabatay, waa la soo wareejiyey. marka tuug iyo sheegbahalkii meelna ku nabadgeli maayo, labada ciidanna waa wada shaqeeyaan. heshiiska dhinacyada ayaa dhacay bartamihii sanadkii tegey, waxaana xilligaa la gaaray qodobo sal u noqonaya is-afgaradka labada dhinac ee colaadu ay ka dhaxaysay, sida uu sheegaya taliyaha guutada 15aad ee ciidanka xoogga dalka qaybta 21aad jenaraal Mascuud Maxamed Warsame. oo qofkii qof dilay la dilo, qofkii u kaalmeeya qofkaas ee qarash ku kaalmeeya ama qarin ku kaalmeeya, in ciqaabta uu mudan yahay la marsiiyo oo noqon doonta ciqaab adag. 3 waxay isla qaateen in la sameeyo aag ka caagan qoriga, oo ah hadda aan u sheegayno magaaladan Balamballe afkeedan dhismaha hadda ku yaala markii laga baxo dhinac kaste 18 kilomitir waa ka mamnuuc wax qori liiraa. Balambal waxaa degmo loo magacaabay 1982 ha yeeshee waxa ay xilligaa ku jirtay gacantii ciidamadii Itoobiya, balse wadahadal dhexmaray xilligaa dowladihii Soomaaliya iyo Itoobiya ayay ciidamadii Itoobiya kaga baxeen 1988. xadka labada dal waxa ay u jirtaa 43 kilomitir, Xabuud waa qiyaas ahaan waxa ay u jirtaa 95 kilomitir, halka Dhuusamareeb oo xarun u ah gobolka Galgaduudna ay u jirto 70 kilomitir.
waa degmo dadkeedu ay ku tiirsan yihiin ganacsiga xoolaha. cabdiwaaxid macalin isaaq, v o a.